السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa inoo wada filim Amerikaan ah kaasoo lagu magacaabo Gifted. Filimkeenu waxa uu ku bilaabanayaa Franco oo u diraya gabarta dabajira iskuulka una sheegaya inay u dhaqanto si normal ah laakiin ayadu maba ay jeclaba iskuulka. Macalimada oo lagu magacaabo Bonnie Stephen waxa ay weydiisay xisaab aad u adag laakiin Mary waxa ay ka jawaabaysaa su'aalaha inkastoo ay tahay ilmo yar. Markuu Franco iskuulka ka soo qaadayay Mary, Bonnie waa ay istaajisay waxa ayna u sheegtay Mary in ay tahay qof hiba leh. Si kasta ha ahaatee Franco waa uu iska diiday waxa uuna u sheegay inay ku xaliso habka Trenton Break. Maalintii xigtay Bonnie waxa ay weydiisay su'aalo basic ah ilmaha fasalka dhigta laakiin waa ay ku adkaatay ilmaha halka Mary ay si fudud uga jawaabtay su'aalaha. Bonnie waxa ay Google-ka ka baartay habka cunugta ay wax ku soo saarto. Maalin ayay Bonnie aaday maqaayad si ay ula kulanto Franco una weydiiso Mary iyo talantigeeda. Franco waxa uu u sheegay in uu yahay abti. Sidoo kale waxa uu u sheegay Daniel Alder Mary hooyadeed xisaabyahan weyn in ay ahayd taasoo isku dayeysay Never Stop Equation in ay xaliso. Waxa uu u sheegay Franco in markii ay Daniel ay yeelatay uur in ay hooyadeed Evenly ay iska cayrisay. Evenly sidoo kale waxa ay ahayd xisaabyahanad weyn. Sidoo kale waxa uu sheegay markii ay dhashay Mary in ay isaga tagtay waa ayna isdishay iyada oo jirta 27 sano sabab la xiriira depression. Maalintii xigtay waxaana la tusayaa wiil yar oo soo fuulay baska waxa uuna watay school project. Wiilka weyn oo baska saaran ayaa taaka u dhigay waa uuna dhacay waxaana burburay projectiga oo dhan. Intaa ka bacdi Mary aad ayay u xanaaqday waxayna wiilkii uu wajiga uga dhufatay buug waxa uuna sababay in uu ka yimaado dhiig. Natiijadu waxa ay noqotay in Franco ay la soo xiriiraan maamulka si ay ugu sheegaan niyadjabka. Maamulku waxa uu kula taliyay in loo diro akaadimiyada dadka hibada leh laakiin Franco waa uu diiday waxa uuna soo jeediyay in ay dhigato iskuulkeeda sababtoo ah Franco waxa uu rabay in ay u noolaato sida qof caadi ah. Subaxii xigtay Mary waxa ay raaligelin ka bixisay habdhaqankeedii xumaa sidoo kale waxa ay ammaantay wiilkii yaraa ee projectiga lahaa. Markay Mary iyo Franco iyo xaafadda yimaadeen waxa ay arkeen Mary ayaydeed Evenly oo banaanka taagan. Evenly waxa ay ogaatay in ay tahay qof hiba leh Mary waxa ayna siisay Mary wax kasta ay u baahnayd waxa ayna u keentay Mary buugag xisaab ah kuwaas oo equation badan laga shaqeynayo. Waxa xigay Franco iyo Evenly in ay murmaan meel maqaayad ah ayaga oo ka wada hadlaya hibadeeda. Evenly waxa ay rabtay gabadha ay ayeeyada u tahay in ay xisaabo aad u adag u soo bandhigto hibadeeda adduunkana ay caan ka noqoto laakiin Franco kuma uusan raacin fikirkaas. Muranka natiijadiisu waxa ay noqotay in Evenly ay dacweyso Franco waxa maxkamadda qareen uga ahaa Greg sidoo kale Smith waxa uu qareen u ahaa Evenly. Ka hor inta uusan gaarin qaadigu go'aan meesha lagu korinayo Mary. Inta waxa xigtay Franco in uu weydiistay Mary deriskiisa Roberto in ay u hayn karto. Roberto waxa ay ka heshay Mary laakiin markii ay ogaatay in ay dacwad ka taalo maxkamadda waa ay ku xanaaqday Franco waxa ayna ku eedeysay in ay dhageystaan maxkamadda sababtoo ah waxa uga imaan karta dhibaatooyin. Bonnie waxa ay la kulantay Franco baarka xilli dambe waxa ayna u sheegtay inaysan cidna u sheegin Mary hibadeeda. Labadoodu waxa ay wada fadhiyeen baarka waxa ayna cabeen cabitaan xoogaa ka bacdi labadoodu waxa ay soo aadeen guriga Franco. Intaa ka bacdi Bonnie waxa ay weydiisay in Mary xaafadda joogto laakiin waxa uu u sheegay in aysan imaan doonin Mary waxayna la joogtaa Robert. Maalintii xigtay Mary waxa ay timid xaafadda ayadoo raadinaysa cajilad waxayna aragtay Bonnie taasoo ku noqotay arrin labadooda Bonnie iyo Franco la yaab ah. Intaa ka bacdi Franco waxa uu helayaa warqad maxkamadda uga timid oo u ogolaanaysa Mary in ay booqato Evenly Boston maalmaha kooban. Mary waxa ay arkaysaa sawirada hooyadeed iyo ayaydeed guriga Evenly waxayna ogaanaysaa sidoo kale Evenly in ay ahaan jirtay xisaabyahaniyad wanaagsan waagii hore oo aad loo yaqaano. Maalintii xigtay Evenly waxa ay u kaxaynaysaa Mary meeting kaas oo ay ku barayso professorku Mary waxa uu u qoray xisaab adag laakiin waxa ay ku guul daraysatay in ay ka shaqeyso. Evenly kuma ay safarxin arrinkaas sababtoo ah Mary waa ay ka shaqeyn weyday xisaabta. Intii ay sii socdeen Mary waxa ay u sheegtay Evenly in equation-ku uu khaldanaa. Evenly waxay dib ugu soo celisay professorka waxa ayna saxday equation waana ay ka shaqeysay Mary. Professorku waxa uu weydiiyay waxa ay markii hore u sheegi weyday su'aashu in ay khaldanayd waxa ayna ku dhahday Franco waxa uu ku barbaariyay
sheegay in aysan dadka ka waaweyn ku dhihin waa khaldan tahay. 2 maalin ka bacdi Mary waxa ay ku soo laabatay Faranka. Mary waxa ay u sheegtay Faranka in aysan rabin in ay la noolaato Evelyn sababtoo ah waa qof amar badan. sidoo kale waxay u sheegtay Faranka in ay rabto in ay la joogto asaga. gabar lagu magacaabo Bat waxa ay ka timid dhanka maxkamadda ayadoo eegaysa xaaladda Mary. Mary waxa ay ka sheekaysay Roberta sidoo kale in ay jeceshahay waqti la qaadato asaga. waxay jeceshahay Faranka ayadoo sheegaysa in uu yahay qof wanaagsan. Bat waxa ay weydiisay sida ay u dareemayso sababtan waxayna u sheegtay in uu Faranka ula dhaqmo sida ilmo caadiga ah. maalintii xigtay maxkamaddu waxa ay keentay Evelyn nin la dhaho Bradley ayadoo sheegaysa in uu yahay Mary aabaheed laakiin Greg waa uu maareeyay kiiska waa uuna ku guuleystay. Faranka waxa uu ka soo noqday xaafadda waxa uuna u sheegay Mary aabaheed inuu u yimid maxkamadda. markii ay maqashay arrintaas aad ayay uga xanaaqday. Mary hoos ayayna ka soo xiratay qol ayada oo dhahaysa aabahay haddii uu yahay muxuu ii soo booqan waayay mar hore. Roberta waxa uu sheegayaa Faranka inuusan ahayn inuu sheego sababtoo ah muhiim maaha. muuqaalka xiga waxaa soo baxaya Greg oo la hadlaya Daniel saaxiibkeed Paul. wuxuu u sheegayaa maxkamadda in Paul iyo Diana ay isla baxsan rabeen ayna rabeen in ay wada noolaadaan isna jeclaayeen. Master Greg waxa uu sheegayaa sidoo kale in DNA-ga aysan Evelyn u ogolaan doonin gabadheeda aysan qayb ka noqon doonin in ay xisaab ka shaqayso. Evelyn sidoo kale dacwo waxay ka gudbisay Paul kaasoo ah in ay Diana kala hareen. sidoo kale waxay dhahaysaa Diana waxa ay ahayd gabar mustaqbal leh mana aysan rabin in ay lumiso mustaqbalkeeda sababahaas oo kale. sidoo kale waxa ay ku dartay Diana oo kale in adduunka ay wax ku soo kordhiyaan. Mr. Smith wuxuu dhahayaa Faranka kaliya waxa uu rabaa Mary sababtoo ah walaashiis Diana waxa ay ahayd caan. sidoo kale Faranka wuxuu ku jawaabayaa eedeyntaas isaga oo sheegaya in ay Diana jeclayd. intaa ka bacdi qaadiga maxkamaddu dib ayuu u dhigay. habeen Mr. Greg waxa uu la kulmay Faranka waxa uuna u soo bandhigay in ay qoys korsadaan Mary. Faranka waa uu iska diiday arrinkaas laakiin waxa uu ku qanciyay in uu la kulmo qoyskaas. agajiid badan ka bacdi waxa uu booqday Faranka faamiliga korsanaya gurigooda waxa ayna u muuqdaan guri qurux badan ayna taalo piano kaas oo ay jeceshahay Mary. ugu dambeyntii way isku waafaqeen Faranka iyo Evelyn in ay Mary la joogto qoyska korsanaya. intaa ka bacdi Faranka waxa uu ku wareejiyay qoyska korsanaya Mary waxa uuna ku qanciyay in ay isdejiso waa uuna ka soo tagay. Mary waxa ay ku qaylinaysay Faranka ayada oo la iga tagin waxa rabaa in aan kula noolaado. si kasta ha ahaatee Faranka wuu iska indhatiray waa uuna ka soo tagay asaga oo dareemaya murugo badan. Roberta aad ayay uga xun tahay waxa dhacay. habeenkaas Faranka waxa uu shaqaynayay xilli dambe laakiin Bonnie ayaa u imaanaysa si ay waqti ula qaadato laakiin Faranka kaliya waxa uu kala hadlayaa sida uu ugu xiisay Mary kaliya. aad ayuu u niyad jabsan yahay asagoo naftiisa ku eedeynaya in uu ka soo tagay. hal isbuuc ka bacdi Faranka waxa uu rabay in uu la kulmo Mary laakiin aabaheeda cusub uma ogolaan in ay guriga galo asaga oo sheegaya in ay Mary aysan rabin in ay la kulanto. sidoo kalena waxa uu sheegay Faranka in uusan dib ugu soo laaban sababo la xiriira in ay niyad jab ka qaadayso. Faranka wuu iskaga soo laabtay asaga oo u dhiibay Mary hadiyad uguna dhiibay aabaheeda cusub. maalin ayay Bonnie aragtay sawir ah Mary bisadeeda meesha bisadaha lagu xanaaneeyo waxa ayna u dirtay Faranka. markuu ogaado Faranka arrinta waxa uu aadayaa meesha lagu xanaaneeyo bisadaha waxa uuna weydiinayaa gabadha reception-ka joogtay cidda u keentay bisadan. Faranka waxa ay u sheegaysaa in ay keentay maamo taasoo sheegaysay in ay xasaasiyad ku qabto. Faranka wuxuu ogaanayaa inuu qofkaasi yahay Evelyn sababtoo ah ayada energy ku qabta bisadaha. Roberta iyo Faranka waxa ay si dhaqso leh u soo aadayaan gurigii qoyska korsanaya Mary. markii ay yimaadaan gurigii waxay arkayaan Evelyn iyo laba xisaabyahan oo baraya Mary xalinta xisaabta. Faranka si dhaqso ayuu ugu xanaaqayaa Evelyn asaga oo ku eedeynaya inay ciyaar game ah la ciyaartay oo si dadban u xareysatay Mary. waxa uu ogaaday Evelyn in ay rabto dhamaystirka rajadeeda ah xalinta Navier-Stokes equation ayadoo u soo maraysa Mary. Faranka waxa uu u sheegayaa Mary in ay raacdo isaga laakiin Mary waa ay xanaaqday waa ayna ordaysaa. Faranka waa uu ka soo daba ordayaa wuuna raaligelinayaa wuxuuna ka codsanayaa in ay cafiso. Mary waa ay barooranaysaa ayadoo leh aad ayay u nasiib xumeyd markay Fred kaxeeyeen laakiin Faranka waxa uu sheegayaa in uu helay Fred markii ay kaxeeyeen ka bacdi. Faranka dib
dib ayuu ugu soo laabtay Evenly asaga oo xal wada asaga oo u sheegaya in ay Diana xalisay Navier-Stokes equation inta aysan dhiman ka hor. Diana waa ay diiday in la daabaco, ma aysan rabin in Evenly ku yeelato wax credit ah. Frank sidoo kale waxa uu sheegayaa in ay Diana u sheegtay arrinkaas in uu soo bandhigo hal sano ka bacdi markay Evenly dhimato. Intaa kadib Frank waxa uu siinayaa Evenly xalintii xisaabeed Diana si ay uga tanaasusho Mary. Intaa kadib Roberta, Frank iyo Mary waxay si farxad leh ugu noolaanayaan xaafadoodii. Evenly intaas ka bacdi waxa ay garowsatay qaladkeedii waxayna u ooynaysaa dambigii ay ka gashay dartood. Mary inta bacdi waxa ay gashay mid waxa ay barasho aad u sareysa oo xisaabeed iyada oo go'aankeeda marka ay wax soo barato. Frank waxa uu u kaxayn jiray iskoolka asaga oo keenaya meesha ciyaalka yaryar ay ku ciyaaraan si ay ula baashaasho ciyaalka yaryarka ah. Arrintaasna waxa ay ku noolaayeen maalin kasta. Filimkeeni maanta intaas ayuu noogu egyahay. haddaan nala soo gaadho dhamaadka waxaa si sharaf leh kaaga codsanaynaa in aad subscribe noo saartid, gambaleelkana furatid. laygtaadu waa noo dhiirigelin si aan u helo saaxiibo u wanaagsan sida adiga oo kale. mahadsanid walaal.